kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkan aanu ku wareysanayno wariyayaashii 91 lagu dilay magaalada Muqdisho eheladoodii qaar ka mid ah sidaanu hore idinkaga ballan qaadnayba barnaamijkan caawa waxaa marti iigu ah 5 wariye la dilay 3 ka mid ah eheladoodii labada kalena dib ayaanu idinkala soo socodsiin doonaa 3daa wariye ayaa waxay kala yihiin Cabdulqaadir Cali Iidle Allah u naxariistee iyo waliba Cabdi Sheekh Cali Allah u naxariistay iyo Mahad Aadan Xasan 3daa wariye ehelkoodii ayaa ila jooga waxaan jecelahay inaan ku bilowno hadii Ilaahay yiraahdo eeradan ila joogto inaan iskiin baro marka hore waxa ila joogto hadii alla yiraahdo jecelahay inaan iskiin baro hooyo Faadumo Salaad Faarax oo dhashay Cabdi Sheekh Cali waxaan kaloo jecelahay inaan soo dhaweeyo iskiina baro Marwo Faadumo Macallin Abuukar oo Cabdulqaadir Cali Iidle xaaskiisii ahayd ربي هور حمده iyo sidoo kale Ahmed Aadan Xasan oo la dhashay Mahad ayaan jecelahay inaan idin soo gudbiyo hadii Ilaahay yiraahdo saddexdooduba way maqlayaan dalkan Ingiriiska iyo dalka Sweden ayay kala joogaan waxaan jecelahay inaan ogaano horta dadkan ay ahaayeen inaan xusno u ducayno isla marxaantaana barano dadka ay ahaayeen aysan noqonin qof waa hore dhintay ama la dilay oo la iloobo laakiin ehelkoodii qaraabadooda saameynta ku yeelatay dabeecadahoodii dhaqamadoodii inaanu weydiino oo waxyaalo fara badan oo lagu ogeyn dadkan magacyadooda aan maqalnay oo in badan oo kamid ah wajiyadooda aan aqoonin dad yar oo la shaqeyn jiray maahane eheladooda ayaa nooga warbixin doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaan marka hore jecelahay inaan soo dhaweeyo hooyo Faadumo Salaad Faarax hooyo soo dhawow way maqashaa hooyo soo dhawow waa kaaga mahad celinayaa magacayga Cabdixafiid Maxamuud Jaamac baa la yiraahdaa hooyo barigu oo dhashay Cabdi Sheekh Cali bal dhalashadiisii iyo barbaarintiisii waxaad ka xasuusatay hooyo noo sheeg adoo mahadsan barbaarintiisu waa hadda soo barbaarinay maana anigu markii saacadii way iga maqanta oo dhashay waa gartay geerid markuu dhimanayaan lagta garanaya waa gartay inta uusan dhimanin ka hor dabeecadihiisii iyo waxyaalihii jeclaan jiray yaraantiisii maxaad ka xasuustaa hooyo nin wanaagsan buu ahaa oo maamulhaya nin wanaagsan oo maamulhaya oo hayo dadka hogaamiyo daadiye markaad leedahay dadka daadiyo wax maamulo ayuu ahaa ma reerku u shaqayn jiray maxuu qaban jiray shaqadiisu maxay ahayd warbaahinta ka sakow reerkana waa noo shaqayn jiray warfaafintana waa u shaqayn jiray xanaanada xoolahana waa xanaanada xoolaha waa ka baxay xanaanada xoolaha waa ka baxay wuxuu galay raadiyo Muqdisho waa gartay raadiyo Muqdisho imisuu ka shaqeynaya xusuustaada haddaad dib u fiirisid wallahi ma xasuusana in wax badan oo ka shaqeynahay waa gartay hooyo aad u mahadsan tahay waa kugu soo noqonayaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u gudbiyaa hadii Ilaahay Sweden iyo Faadumo Macallin Abuukar Faadumo soo dhawow waa dhawahay Cabdixaafid waa mahadsan tahay magacaygu waa Faadumo Macallin Abuukar waa ku soo dhaweynayaa waa gartay Faadumo waxaad iiga warantaa hadii Ilaahay yiraahdo odaygaagii Cabdulqaadir bal meesha isku barateen iyo berisamaadkii waxaad ka xasuustid والله عبد حافظ وبرسماتكي odagaygu waxaan is baranay 82 bilowgeedii ma sha Allah 83 maxay ahayd horaanteedina waa aqal galnay ma fahamta si fiican marka odagaygu wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad wanaagsan ma sha Allah u afgaaban wadaad ah shaqadiisii waxyaalaha loo diran aad uga adag oo barbaaray family aad u fiican oo kala dambeyn iyo asluub iyo xag diineed ba aad uga muuqato ma sha Allah waa gartay dabcan adigu qofkii nolosha la qaybsanay baad ahayd inkastoo qadar idin kala waday maxaad dabeecadihiisii gaarka ahaa mid iyo laba ka xasuusan kartaa oo qalbigaaga wali ku jira
run ahaantii cabdi xafiid haddii aan kaaga warramo dabeecadihiisa nin dabeecad adag ma ahayn maasha allah nin asluub lahoo dadala dhaqan ahoo maaragtay aad iyo aad aan la soo koobi karin naxariis badan xushmad badan qadirin badan bulshadana maaragtay magac gooni iyo maamuus ku leh xagga dhalinyarada la socodka iyo xagga diriskaba iyo xagga reerkiisa iyo xagga ehelkiisa nin u wadaag aad iyo aad ugu wanaagsan buu ahaa ma fahamtay aad iyo aad waa kugu soo noqonayaa axmed haddaan u gudbo axmed soo dhawow sida asxaabta kale aan kusoo dhaweynayaa bal gudagal kolay su-aasha waa maqashay su-aasha la midka adiga asaga yaa weynaa maxaad ka xasuustaa walaal marka hore waan dhowahay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka inaan kasoo qayb qaato mahad aadan xasan mahadcadde wuxuu ah da'deediis wuxuu iga weynaa oo gabadh deeqa aadan xasan la yidhaahdo waa noo dhexayso oo iyadana walaasheen ah maanta joogta marka mahad curadkii wuxuu ahaa reerka hogaaminayey ka qayb qaatay nolosheena iyo korriimadeena xataa qayb ka qaatay bulshadii aan la soo kornay xaafadihii aan degenayn bakaaraha ama madiina waxay ahaayeen dad aad u jecel ilaa yaraantiisii ilaa intuu weynaado idaacadda shaqo ka bilaabay nin la jecel yahay ayuu ahaa ilaa hadda dadkii aan waqti isku weynay ayaa ila soo xiriira oon meel ku wada dhalanay marka wada axmed rallow marka mahad yaraantiisii wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho hadda ma xasuusto maadaama in badan iga weynaa martiini iyo waxaa jiray isbitaalaha micnaha dadka hadda maanta jooga ayn garanayn qaarkood cariif la yidhaahdo ambulatoriyadii aan ku dhashay oo kale wasaaradda caafimaadka markii dambe laga dhigay taaladii daljirka daahsoon agteeda ku taala marka isku raran ayuu ku dhashay xaafaddii isku raran la oran jiray maanta jaleem ceelgaabi iyo soonaheeda aan jeclahay inay tahay iyo axmed jadiid marka waqtigii dambena waxaan ku soo biirnay dadkii xaafadihii hodan kaaraha soo degay ilaa markii dambe aan u bedelanay madiina oo marka guryo waasac wax saasa aan ka raadsanay iyo marka waxaan deganay xaafaddii madiina xagga dambe ka ahayd oo nuur adduunye iyo dadka kolley hadda magaalada muqdisho degan xaafadda wadajir ayaa yaqaana ceeldheere ayaan deganay oo aan ku soo kornay intii qaybteennii dambe marka mahad wuxuu ahaa nin aad looga jecel yahay xaafadda maadaama macallin ahaa macallinnimadiisuna 81 meelaha uu dadkii xalano ka soo baxay ayuu ahaa maadaama wuxuu dhigi jiray maadaama macaa wallaahi markaa dee nin dhalinyarana waan ahaa waayo 91kii haddaan 21 aan jiray dee marka 80 iyo xogaagii waad qiyaasi kartaa intaan jiray macnaa dugsigii anaaba kalaaska shanaad meelahaas dhiganay laakiin wuxuu dhigi jiray juqraafiga isaan jeclahay laakiin iskuuladii uu maanta wax ka dhigi jiray ardadii macnaha waqtigaa dhiganaysa ayaa ilaa hadda ila soo xiriirta oo qaarkood xasuustaan macnaha wuxuu ahaa marka dhamayaan sacatan ayuu iskuulkii aan jeclahay inuu ka bilaabay dhamayaan sacatan markii wixii ka soo horreeyeyna wuxuu ka dhigi jiray meeshii carruurta agoonta lagu hayn jiray afgooye ee weliba qaybta gabdhaha baan jeclahay ayuu marka u horeysay iskuul ka bilaabay macallinimo markuu xalano ka dhameeyey axmed waa kugu soo noqonayaa hadda waxaan aadayaa hooyo faadumo haddii la yidhaahdo hooyo sidee ayay ahayd haddaan wax kaa weydiiyo wax awlaadu ka tegay ma jirtaa cabdi sheekh cali awlaadu ka tegay hal wiil wiilkaas xaggee ku dambeeyey annagaa hayna haatan ingiriisku idinla joogaa waa meeqa jir hooyo adoo mahadsan ya waa meeqa jir inankuu ka tegood ayayada u tahay waa meeqa jir 30 sano waa jiraa 30 sano ku dhawaad waa gartay maalintii la dili rabo u dhashay 30 sano waa gartay 30 jir waaye dabcan
nin weyn oo mudakara weeye 30 jir ah arrintii siday u dhacday iyo aabihii meeshuu ka dambeeyey dabcan wuu idin weydiiyey maya annaga weli hogaaminayna weli mas-uul ma uu qaadinin walaalihiisaa joogo wax adeeryaalkiisaa joogo maxamed sheekh cali oo ilmaha wiilasha u weyn oo halkaa ii fadhiyaa joogo waa gartay hooyo dabcan wuu idin weydiiyey waad oga sheekayseen intuu yaraa iyo intuu hadda caqliyaystayba aabihii siduu u dhintay iyo wixii ku dhacay maxaad kala kulanteen jawaab idinkaga jawaabay weli waxaas ma aanaan weydiin okay waa gartay imina sheegay waa gartay hooyo hadda haddii aan ka gudubno arrintaas cabdi sheekh cali wuxuu ka shaqaynayay idaacaddii waxaa igu maqaalo ah xilliga dilkan uu dhacayo inay ahayd bil ramadaan uu soomanaa arrintaa ma ka warqabta adigu ya telefonka fadlan baktiya idinkoo mahadsan gadaal ka baxaya codka saan hooyo isku maqalnay waa hagaag hooyo waa usoo noqonayaa hooyo halkaa ii joog faaduma u gudbayaa faaduma ma jirtaa faaduma cali ibrahim baa sheegaya ma jirtaa wax awlaada isku dhasheen walaalay maasha allah 4 caruura afarta caruurta ahu maanta aday kula joogaan baan filaya si wanaagsan maasha allah su-aasha hooyo aan weydiiyey dabcan waxaad oga warrantay aabbahood wixii ku dhacay iyo dad kaloo fara badan oo soomaaliya dalkeeni markuu burburay ma sahlan inaad u sheegtid aabbo qof kalaa dilay maxaad ku tiri sidee ola hadashay sidee warkaan ugu gudbisay naxdinta leh runtii cabdixaafidow soomaali sideedaba wax maba qarisaba ma ogtahay intaa aniga u sheeginaaba loo sheega soo maaha magaalada ka maqleen magaalada xaafadiyaa loogu yimid oo waa maqlaayeen hadalkoodo waa la dilay aabbahoodo nin magacaas liiraabaa dilayo waa ka warqabeen yaraantoodii waa lagu seexin jiray waa ogyihiin waa gartay maxaa ka wada waa lagu seexin jiray maya hadda waa maqlaaya ilmihii xaafadiyaa dadkii soo booqday iyo dadkii xaafadda jooga iyo ilmaha kan waa agoono aabbahood ninkaasaa dilay magaciisaas liiraa taakeenin liiraahaa dilay ilmahan marka wax qarsan ma jirto waa la ogyahay taas ilaa yaraantoodii ilaa hadda way ka warhayaan naxdin iyo afmakariir iyo tiiba mid ka darmo maanta anaka noo taagan tahay waayo 30 sano wax dib loo dhaafay xasuusin xoog leh ilmihii oo maanta wax fahmaayo oo dareenkooda hadda waxa waaye shal waxa ay kala ogeyn waxay maqlaan hore u gudbi jireen laakiin maanta tii shalay annaga maanta nooga xanuun badan runtii marka leedahay waa nooga xanuun badan tahay maxaad ula jeedaa macnaha walaalada maadsan waranka ninka kugu dhuftay iyo midka kugu gilgilaba way kala xanuun badan yihiin dhacdada shalay aabbahaas waa dhintay waa laga samray caruurta waxma aysa fahansaneen laakiin hadda waxbay fahmayaan ya xanuun bay ku noqotay waa gartay cadaalad leh loo baahan yahay ilmihii inay cadaalad helaan u baahan yihiin ninka dila waa ninkaas anaa ku dhahaya maanta waa gartay dabcan xilli aan isaga wareysanaynay wuxuu ii sheegay oo isaga mar walbana saxaafaddu qofka maqan bay difaacdaa wuxuu ii sheegay aan jeclayn aan ku celiyo inuusan arrintaas rugna ku lahayn cidna uusan dilinin ciddii eedaynta wadana ayaga caddayn laga rabo dabcan dad kaloo kala duwan baan waraysan doonaa laakiin adiga haddaan ku weydiiyey adigu goobjoog miyaad ahayd meesha dilkan uu ka dhacay mise waa laguu sheegay aniga idaacadda goobjoog kama ahayn laakiin xaafadan goobjoog ka ahay ma fahamtay aniga wiilkaas inuu wiilkan ninkan dilay marxuumka inuu dilay markaatimo doonto waay taas haddaan ku dhahaya waa gartay maxaa ka jira erayada oraahda odhanaysa markii dilkan uu dhacay kadib waxaa wada hadlay sida dhaqanka soomaaliga suuban uu yahay labadii qoys
diyaa la idin siiyey arrintaana waa arrin dhammaatay maxaa ka jira wax xogood ka haysa ma jirto haba yaraatee wax ka jira haba yaraatee ma jirto biyaha qofkii qaatana maba hadleenba soo maaha marka inuu dilo waxaa ku cad inay qoysaskii wada kulmeen wada hadleen arrintii meel laysla dhigin dagaalkii 4 bilood uu qarxay taasaan goobjoog u ahay ana idaacadda goobjoog kama ahayn dagaalkii 4 bilood waxaa ka wadaa dagaalkii u dhexeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi iyo Caydiid nacamtu billah marka su'aashii hore haddaan kugu soo celiyo Faadimo Macallin Abukaray wax diyaa la idinma siinin laakiin wada hadal labada qoys ayaa bilowday baa leedahay oon meel dhalin wada hadalaa bilowday wada hadalkiina maba dhammaanba soo maaha waa gartay aadan kugu mahadcelinayaa waa kugu soo noqonayaa dib waxaan ugu noqonayaa markaan haddii ilaahay yidhaahdo axmed oon weydiinayo wax wada hadalo qoysaskaas in ay jiraan iyo in kale iyo wax xiriiroo lala soo sameeyey ama ayagu ay sameeyeen axmed haddaan ku soo dhoweeye ma jirtaa wax diyaad qaadateen ama wada hadala oo dhex maray qoyskiina iyo qoyska ninkaa lagu eedaynayo inuu wax dilay waxaan u leeyahay eedayn wax caddayna ma hayo soo dhowow wada hadal marka hore maba dhicinba waayo intaa 30 sano Soomaalidu inta badan way kala maqneedba hadda unbaa micnaha de meediyaha cusub oo adduunka maanta hala qaaday unbaa keenaya in xiriir laisku sameeyo laakiin anigu wax wada hadal ah aan reerka u ka dhashay ama aan wada xiriiray ma jirto haddana waa kan taaganba micnaha anigu maba iiba eedeysana laakiin dee cadaaladdan ka yeelin waa gartay aad baa ugu mahadsan tahay waa mahadsan tahay hooyo Faadimo dib ugu noqonayaa hooyo haddaan adiga mar kale kugu soo dhoweeyo ma jirtaa wax wada hadala oo labada qoys u dhexe oo xaal mastuur ah oo arrintaa lagu soo afjarayay ama jiyaha oo qoyska la siiyey waa gartay daawadayaal hooyo waa qof weyn marka inaan cod kor ugu qaado weeye hadday maqli weyda ka raalli ahaada hooyo khayr allah ku siiya fadlan dadka gadaal ka hadlaya waa idiin mahadcelinaa laakiin haddii aan wax yar hoos u dhigno codkasay hooyo ii maqasho hooyo macaan ma jirtaa wax diyaha oo laydin siiyey maxamed shacalaan kugu wareejinaya ii kaada anigu indhahana waala oo waxba jeedo marka maxamed shacalaan kugu wareejinaya sug meeshaada fadhi maxamed ha ku garab fadhiyo maxamed shacali waa kan محمد شعلان كو إلمهم كو ولكن يا أنا وحنا كذا واقرتي هو محمد هدي أنا وجهها كاميرا فعلا وجهها جسيد وعلى الله هيد وحير هذا كوه جينا سو وحير وحير وجهها محمد مجرته واحد جياه ولا ينسيي أما وضح هذا ولا بدأ قوس الأحمري واحد جياه ولا ينسيي أما واحد ولا بدأ قوس الأحمر متشرانين واقرتي واحد ولا مجرى وذن الأحمري واقرتي أذوق طبعا إن تكونين بان قياسية واقرتي هوي حوغا يرى ونسمغلي ويني وأوعدو داريا هوي وين وين الله بركة عمرك هذه عافمات كذا ما حد كحسوسة دبعته سي نقن كيسي ما دام أذوق هاي ولالكي كوينة الله نحرسته ولالكي عبد الشعلي وحكب حي dugsigii sare ee xanaanada xoolaha waxaa loo bedelay degmada Caluula uu ka soo shaqeeyay 1975 kiina waxaa lagu soo ceshay xamar wuxuu haddana mashruucii gandiga la oran jiray afgooyi ayuu shaqo ka bilaabay kadib 80gii ayuu wuxuu galay raadiyo muqdisho shaqo ka bilaabay ilaa 90gii ayuu shaqeynayay واقرتي طبعا ويلكي ودليل إذن لجوجا حتى لندن سان دريمة يهوي مركان ويدي
xoogaa yar waxa laga yaabaa inuu communicationkeenu fiicnayn bal asaga dabeecadihiisii wuxuu ka raacay iyo sidii loogu sheegay newskii maxaa nooga sheegi kartaa waxa ka ogta walaalow macnahu waxa weeyaan wiilkaani waa ilmo yar buu markaas ahaa aabihiis in la dilay wuu maqlay ninkaasaa dilayna wuu maqlay balse waxa weeyaan wax kale oo wara oo dheeraad ah oo uu ka hayaa ma jiraanin waa gartay waxaan jeclahay inaan u gudbo qaybta kale oo ah xilliga dilku uu dhacay iyo idinka saamayntu idinku yeeshay family ahaan haddaan adiga kula joogo maxamed sheekh caliyow goormaad maqasheen dilkaanu inuu dhacay cidda dishay kama hadlayno dilkaanu inuu dhacay goormaad maqasheen sidee warku idinku soo gaaray walaalow waxaan maqalnay dilkaani markuu dhacay 2 beri kadib anu maxamed baan joogay annagoo dhan inteena badan baan marka 2 beri kadib baan maqalnay aan wax in la dilay kadibna waxa weeye gabadhii walaasheed uu la joogay ayaa maxaa noo tacsi samaysay odayaal maaragtay baan noo tacsiyeeyay tiro badan oo maaragtay familkaas ahaa oo gabadha qabay marka waqtigaasaan maqalnay annaga gabadha la qabay waa tuma waxa xalimo sheekh cali walaasha waa gartay marka reerkii xididka aad ahaydeen baa idin tacsiyenaya waa gartay dabcan waxaan war ku hayaa inaan khaldanahay iyo in kalena adaa isixi doone dilkaanu xilligu dhacay xilli rabadaan inay ahayd waxay ahayd rabadaan bay ahayd bisha mars abril bay ahayd 8 iyo 9 aad ma kala hubo laakiinse maalin jimcaha oo rabadaan ayay ahayd ma abril bay ahayd mise march labada eray waa sheegtay abril 8 bay ahayd abril 8 baan hubo u dhow iyo 9 labadaas midkood bay ahayd waa hubaa waa gartay uuna soo maraa dabcan erisalaadoo soomu ahaa allah oo sooman oo ilaahay ka baqaya ayuu ahaa waa gartay rabbi waxaan oga baryaynaa inuu u naxariisto waa hagaag waxaan kaloo rabaa inaan u gudbo axmed oon weydiiyo siday ku ogaadeen iyo dilkaanu siduu u dhacay waxay ku ogaadeen iyo saamaynta uu ku lahaana waa idin soo wada noqonaya kulligiin waa idin weydiin doonaa haddii la ahaado wax yar ii kaade axmed aan khadka soo geliyo axmed kolley waad maqlaysay su-aasha goormaad ogaateen in uu dhintay walaalka mahad aadan xasan anagu 28 qoyska qaybna xamar bay joogtay hooyo iyo walaalo ayaa xamar nooga haray 28 March ayaa aniga iyo walaalkay iga yaraa iyo aabahay waxaan u soo aadnay Soomaali galbeed baan soo aadnay anagoo kolonyo badan ah oo dadkii u dhashay xataa magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ay nala socdaan oo nabadgelyo darteed ay uga cararayaan magaalada Muqdisho ayaan isu soo raacnay marka waxa magaalada Muqdisho ku haray hooyaday Faadimo Nuur iyo walaashay Deeqa Aadan Xasan waxa kala joogay oo meeshii xataa goob joog tagay markii la dilay habareertay Dahaba Cali Sawaaxili waxay tageen maalintii loo soo sheegay oo taariikhda 8 bishii Abriil ah bay tageen waxaana loo soo sheegay in wiilashii uu ku jiray mahad afarta wariye la qaatay oo ninka uu qaatay oo meedadkoodana yaalaan washadaha saasaa ku ogaateen newska saas baan ku ogaanay marka anagu maadaama aan xaafadda ama magaalada Muqdisho aan ku sugnayn marka waqtiga waxaan ku sugnaa magaalada Goday baa anaga socota oo badan ayaan joognay dhalinyaro marka aan qaraabanahay baa naga daba yimid wax aan alifayo ama maanta maanta aan wax ka sheegayo maaha waxay ii sheegeen nin la yiraahdo Taakeye inuu walaalka dilay meedkiisina ilaa hadda waa leeyahay dadkii qaar baa maadaama inta islaam ahaayo aasay dadka wixii meyd ay arkaan axmed waraalow see ku ogaateen in meydadka la geeyo warshadaha haddii markii dilku u dhacay cidu ay saareen see ku ogaateen walaadee waxa weeye meesha markii nimankan la qaatay uu ninkan qorshaha hore u sii degay ay ahayd dadkii qaar baa baqayay oo ka baqayay inuu asagaba xataa macnaha magaalada ka baqayay in iyaguba la dilo ayaa soo ogaaday waxa lagu soo ogaaday dadkiiba aqoonsaday
in dhalinyaro laga soo qaaday meeshaan lagu laayay oo meydadkoodu yaalaan marka islaanta hooyo waxaa soo wargeliyey markaan kuleeyahay micnaha arrintu marka waxaa soo wargeliyey yar magaalada muqdisho qabiil ahaan ka soo jeeda oon jaar ahayn baa hooyo u soo sheegay oo asagana markaa doonaya inuu idaacadda farsamaykaan ama wariye ka noqdo oo maalin walba tegi jiro araajiyo wax geysan jiray ayaa soo wargeliyey hooyo oo yidhi hooyo mahad waa la dilay marka aroortaas uu baxayana asaga maalintaa buu tegeyba intuu rabshado iyo wax dhacayana ma tegin aroortaa buu tegey aroortaana hooyo wuxuu ka qaatay fasax ah hooyo furahan baan geenayaa maadaama istuudiyihii iyo qaybihii kale furihii koobigaha anigu aan hayo dhowr goorna la ii soo diray dad baan geenaya markaas tiri carradu nabad ma ahane qof walba gurigiisu ku jiraaye soo noqo way nooshahay walaal way joogtaa gurigay ila joogtaa laakiin ma doonayo inaan xusuusiyo waayo qof weyn weeye waa 80 bay kor u dhaaftay marka ma doonayo in micnaha sidii gabadhii walaashay Faadumo ay sheegayso micnaha waranka haddii lagugu dilay xusuusta 30 sano inay maanta ay dib u soo xusuusto oo ku soo noqonaya Faadumo Cali Ibrahim Faadumo dabcan waad maqlaysaa su-aashaas aan weydiiyey ahayd goormaad ogaateen see ku ogaateen maxaa laydiin soo sheegay xaaladdu say ahayd muqdishoad joogtaan bal walaalay sawir ka bix subaxdii uu shaqo tegey subaxdii markuu shaqo tegey saacado kadib baa adiga dheeladayaa soo yeertay war xunaa soo yeeray saacado kadib kolley aniga meelaan yara gaaray soo noqodkaygii suuq yaraan kasoo adeeganayay mar alla markaan soo noqdayna xaafadiyooba la buuxo aan ku soo noqday wargelin lagula sameeyey inuu dhintay wiilkii ninka magacaas liiraa dilay wiil yaroo idaacadda kala shaqaynaya oo ku cusbaay markaas aa warbixinta keenay ma fahantay ma xasuustaa magaciisa awees bashiira lahaa gartay marka sidaasaan ku ogaaday xaafadii wada guuxaysa waxaan yiri xabado baroonaha dhaceen mar alla markay xabadihii dhaceen iyo buuqi xaafadda markaan arkaan yiri talow macaruurti xabadihii isu dhaafeen mar alla markaan soo dhawaaday oon yaabanahay ama kaag aan arrintii la ii sheegay xataa wiilkii warbixinta keenay xaafadda uun dhigo waa iga weji qarsay adig ma fahantay marka arrinta saasay igu soo gaartay annaga subax siduu nooga baxay oo shaqadii u aaday laguma soo noqon waxaan xanuunka la qabaa gabdhaha ayagana dhibkaasoo kale ku dhacay oo raggooda siday shaqada ugu aadeen dib ugu soo noqon aniga markii odagayga laga qaada meeshii markuu dhibka gaaray isbitaal digfeeraa la geeyey maba nagu soo noqonba waxa waaye meeshiisaa lagu aas qabuuraha qaranka meelahaasaa lagu duugaaday insha allah meeshaasaa lagu aasay dib nooguma soo noqon marka raggaas xaafadahooday ka baxeen dibna uma soo noqon walaa waa gartay aaskoodii ma ka qayb gasheen aaskiisii may aniga ma tigin xaafada way kala dheeraayeen marka kolley dhallinyaradii dadkii la dhashay iyo walaalihiis iyo eheladiisii dadkiisii aasa kolley waxba dhibaato ma jiraan ana caruurtaydan iska haystay maxaa la sheegaa aadan kugu mahadcelinaya waa hagaag waxaan jecelahay markaan inaan dib ugu noqdo maxamed soo dhawow waxaan rabaa hooyo weli way ku ag joogtaa waa qof weyn qoyskiina reer Sheekh Cali gabagabadii aan ku soconaa saamayn intee leeg ayay idinku yeelatay inuu marxuumkaanu idinka baxo oo aad weliba aad aasan kari weydaan duruuftii guud ee markaa dalkeena ka jirtay colaadii dalka ka dhacday awgeed sidee bay idiin saamaysay markaad dib u sawiratid wallahi siday noo saamaysay wax la caddayn karo ama wax la sheegi karo ma ahan maxaa yeelay dhibta dhacday waxa weeyaan hooyo waaba indha beeshay oo ujeedaa waa indha laadahayba
waa gartay dhibaatada noogu weyn hooyo indha beeshay baa noogu darnayd xalshoogii ay naxday iyo hintii maaragtay qalbigeedu uu fuqay halkaas waxaan rabaa inaad fahansiisid daawadayaasha maxaa ka dhexeeya geerida naxdinta leh ee marxuumka ku jira allah u raxmade iyo indhala-aanta hooyo waxaa ka dhexeeya hooyo waxa weeyaan waxay aad bay u jeclayd wiilka kan waxa weeyaan oo qof maaragtay aad ugu roon buu ahaa marka oo kulligan way naga wada jeclayd oo maaragtay aad buu ugu dhowaa marka qalbigii baa fuqay hooyo oo hintii ay ooyeysay waa sidaasay ku indha beesha waa gartay marka ma iyadoo weli xamar la joogay hooyo indha beeshay mise markii laga soo tago halkan la yimid markii laga soo tegay maaha ooyo indhaheedu ma fiicnaynba marka aad moo indha beelin laakiinse markaan la soo qaxnay waxa weeye hooyo indha fiican ma lahayn araggeedu waxba hamaag baa ku jiray kadibna waa iska indha beeshay ilaa haddana waa indhalaada waa gartay aada mahadsan tahay waxaan ku noqonayaa axmed hal mar haddii ilaha yidhaahdo axmed soo dhawow su-aasha waa maqlaysay sidee ayay idiin saamaysay ka qoys ahaan idinka ree aadan walaal waad dareemi kartaa marka qof member reerka ah oo meesha ka baxay qoyskii ama reerkii wuxuu ku yeelan doono maadaama mahad uu curadkii reerka ahaa odaga aabbahay maalmahaas dee micnaha de anigu maadaama dhalinyaro ahayn oon markaa gobolada soomaalida etoobiya aan joognay dee waxaan markiiba dareemay waxyaaba aan odaga aabbahay ku arki jirin ilaa aan markii dambe xataa caafimaad u keenay jarmalka uu ku geeriyooday waxaa markiiba ku dhacay cudur la yidhahda parkinson ama soomaalida sida u taqaana gariirka naxdintii marka mar walba uu dhakhaatiirtii aan waddanka jarmalka aan geeyey ay waxay dhihi jireen wax faraciisa ama maaragtay hore u qabay waxaan ma jiraan maya wax naxdin ama maaragtay dhibaato uu markaa tabanayay markaan ugu sheekeeyo buug waati ku qori jireen dawooyin markaa ay ku tujiyaan bay siin jireen ilaa markii dambe 2004 uu ku geeriyooday magaalada Bonn oo aan deganeyn marka dhibaato taa iyo murugo badan oo mar walba markaa soo xasuusatay qofkii dilay oo magaalada iska tamashlaynaya dee macnaha hadduu ahaan lahaa walaalkay ama wariyaasha maanta la dilay hadday ahaan lahayn niman dee dhigicab oo dadka ayaga laynayaan oo lagaa dilay waxba macnaha caloos kuma xanuun lahayn laakiin nin maskiin oo saaka u shaqashta tegay baa waxa soo heshid oo dee loo dilay gardarro waa dareemi kartaa waxa macnaha nabarka uu kugu yeelayo marka way jirtaa waa tan hadda aan ku leeyahay hooyaday macnaha ma doonaya media inaan soo fadhiisiyo ama TV-ga aan horteeno kaaba ka mid ah oo macnaha xaggii aad ka wareysanayso ma xag kale aadaysaa maadaama iyadu dhexdeeda isku booqayso marka way jirtaa murugo badan dhibaato badan weliba xataa ha ugu sii badnaato waay hadda waay macnaha 30 sano waad ilaaweysaa ruuxii lagaa dila ama gardaraha lagu dilo ama ha lagu dilo gar laakiin markii la keeno youtube-yada qaarkood ay ka shaqeynayeen macnaha ay marwalba soo baafinayeen cadaalad aan weli u helin aan daba ku jirno waayo programka hadda aan ku jirno waxa way sidaan cadaalad ugu heli lahayn marka waxaan ka sugaynana waa soomaali walaaladeen muslimka ee soomaali baan ka sugaynaa waxaan ka sugaynaa wax alla wixii caddayn ay ka hayeen waayo ruux walba oo kaa tegey hadda ilmaha yar markaa iskuulka u dirsid oo maanta wax ku dhacaan miyaa la daba socotay miyaa markuu ku fay miyuu wax mar walba ma daba joogto sida baabuurtii kaamirada lagu xirayo kale ma noqonaysid marka waxaan ka doonaynaa soomaalida walaalaheena markaas goobjoog ahayd meel walba adduunka ay joogaan hadday nool yihiin waxaan ka doonaynaa xiriir inaan la sameyno cadaalad aan helno waa gartay waa usoo noqonaya mawduucaas waxaan rabaa inaan su-aal kale hadda hadallada dhahaysay eray ka soo dhex baxay oo ahaa dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen aabba allaha u raxmadee parkinsonka markuu ku dhacay oo si fiican u bixida cudurka dadka gacmaha geliya dadka qaarkood xusuustuu ka qaadaa laakiin gacmo geliirkaas bilowgiisa hore weeye dhakhaatiirtu waxay ku yidhahdeen wax dhibaato waxay ku yidhahdeen ciddiina wax ka mid a xanuunkan qabay ma jiraan mayaa tiraahdeen
maxay kale oo u sababeeyeen amase ay kuu sheegeen oo xanuunkan uu ugu yimid baalislaam waxay ugu yidhaahdeen way weydiiyeen dagaalkii micnaha soomaaliya ka maadaama qaxooti aan ahayn oo markaan dee sifa kala kumayna tegeen meesha ilan micnaha ama tamashle kuma tegeen ama dalxiis kuma tegeen marka wayna weydiiyeen sifihii micnaha markuu aabbaha waddanka joogay ama maaragtay uu ka yimid ama waddamada kale aad soo marayseen wixii keenay wax keliisoo markaa asaga wadnihiisa ama u dhimaya ama markaa la dirsay miyaa jira marka wixii baan uga sheekeennay waxaan uga sheekeennay wiilkii curadkiisa ah oo dhintay kabacdi ayaan waxaan dareennay asaga in gariirkan uu ku bilaabmay aad umaasantaa ku fahmay faadmo dabcan waa dhegaysanaysay horena waxaa u sheegtay dareenkaasna qoysaska soomaaliyeed aad la qabtid jeclahay inaan idin weydiiyo saddexdiinaba midba mar waxay tahay haddii ilaahay yidhaahdo ninkaa lagu eedaynayo in uu wax dilay waana ku celcelinaya ereyga eedayn maxaa yeelay isagu wuxuu yidhi anigu shuqul kuma lihi sidaa awgeed qofka inta maxkamad laga soo taagayo oo maxkamadaasu ay ka xugmanayso waa qof aan dembi lahayn sida maxkamadaha caalamku ay u shaqeeyaan haddii aan ku weydiiyo adiga maanta haddii aad fursad u heshid in aad adiga iyo taakeeye iyo afartaada awlaadda ee agoonta kusoo korisay allah ku sharfay aad ishor fadhiisataan maxaad ka oran lahayd ama ka dalban lahayd wagaag haddaad fursad u heli lahayd maanta muwaadinkaa soomaaliyeed ee lagu eedaynaya inuu wax dilay hadduu soo hor fadhiisto aad fursad u heshid maxaad ku oran lahayd adiga iyo ubadkaaga yaryar ee agoonnimada kusoo barbaaraysa waqtigeeday ku hagaagsan tahay taas ma arki doonaa waa su-aasha waa gartay aadan kuugu mahad celinaya allah ku karaameeye su-aashaa su-aal lamid ah maxamed maalmaha adduunku waa iska gabagabo dunidan waa laga tegayaa haddii muwaadinkaa soomaaliyeed oo asagoo qirtay in uu asagoo caddeeyey inuusan cidna dilinin dembigaan iyo eedayntaana loo soo jeedinayo aad la kulantid maxaad ku oran lahayd maxaad ka dalban lahayd waxaan dalban lahaa waxa weeyaan horta sharciga in la hor keeno haddii leh aan heli karno isla markaasna waxa weeyaan xasuusta maaragtay ninkan waxa weye annaga lagama qarsana maalintuu ninkan dilay ilaa iyo hadda magaciisa waan haynay waxa weeyaan annagan wax magaciisana waxaan u naqaanay annagu sufyaan iyo waxaas ma aqooni cabditaakeeye cabdulaahi baa magaciisa la yidhahdaaba noloshan ku yiri annaga cabdulaahi taakeeyaa la yidhahdaa axmed in loogu daray abihiis ma aqaano laakiinse cabdulaahi taakeeyaa la yidhahdaaba nalay ku yiri markii annaga hawshan naloo sheegahayey marka annagu ninkan waan hubnaa inuu walaalkay dilay wax qarsoon ma ahan ummaddii meesha joogtoo dhan baa sheegaysa waxa weeyaan muxuu ahaa waxaan doonaynaa annagu sharciga in la hor keeno wuxuu sharcigu qabo la waafajiyo intaas keliya ayaan doonaynaa oo maaragtay sababtoo waxa weeye xasuustan noogu darnayd waxay ahayd maadaama aan walaalkay oo meyda oo meesha u geeya aanan ogeyn haddaaban maqlahayaa muxuu ahaa miisaanka dhuxushaa lagu tuuray laakiin annaga markii waxaa la yidhi meydkiisa waa la qaatay meesha waa laga qaaday ayagoo afar ah meydkooda baabuur intii lagu guray baa meel lagu daaso duurka ah baa laku yiri ma fahamti annagu laakiinse ma aan ogeyn meeshaas muxuu ahaa meesha lagu daasay oo kuma dambaabi karo halkaas weeye ma oran karo marka naxdinta noogu weynayd waxay ahayd meydkii aan duugan weynay annagii oo maaragtay nafteenii muxuu ahaa socodku nagu xadirnaa dhibaatadaas noogu daran marka waxaan doonaynaa sharciga in la waafajiyo ninkaas odaga ah annagoo maaragtay ka codsanayna ummadda soomaaliyeed oo dhan waa gartay waa ku mahad celinaya axmed baa su-aashaasoo kala siinayaa axmed soo dhowow su-aashu waxay ahayd ninkii walaalkaa dilay ama dadkii walaalkaa dilay haddii lagula kulansiiyo aad hor fadhiisataan aad fursad u heshid si nabada ku jirto oo deganaan ku jirto oon dagaal lahayn oo weerar lahayn haddaad is hor fadhiisataan maxaad ku oran lahayd maxaad se ka dalban lahayd
walaal hadduu asaga marka hore la imaan lahaa way fiicnaan lahayd laakiin waqtiga xadirka uma banaana qodobka keliya u bannaan waxay kala mataqaanaa ruuxu markuu dembi galo oo ummaddii ilaahay intuu soo hor istaago yidhaahdo dembigaabaa gelay marka waa laga yaabaa inaan marka aan arrintii aan annaga go'aan famil ahaan qaadan lahayn inaan ka soo jeedinay meesha laakiin ruuxu hadduu asaga ku indha adeegayo amba intaan wax sameeyo waan istaagi karaa waan oran karaa waxaa ma samayn laakiin waqti bay qaadanaysaa markhaatiyaal bay noqonaysaa way dadkan micnaha xoolo uu meel ku soo xirto marba mid la baxaya ma ahan waa dad bini aadana wadankay u dhasheen joogeen weliba magaalada ay ku dhasheen joogaan marka waxaan doonaynaa hay-adaha xuquuqda wax meel walba aan marno inaan cadaalad helno waayo fursaddii aad hadda su-aasha weydiinayso fursadda asagay ahayd taa ma ahan annaga su-aasha asagay ahayd inuu ciidda isku qarin bay ahayd oo hor yimaado meelyaha uu sheego marka alla markii dee nin walba micnaha dee aan cadaalad darro ka tabanayo ruuxi waa inuu cadaalad helaa waa gartay waxaan ugu dambayntii su'aal dadka qaarkood ay suuqa la marayeen ama dadku ay isweydiin karaan inaan ku weydiiyo adoo aad u soo koobaya dabadeedna martida kalaan weydiinaya dadka soomaalida ahu markii dhibaata ay dhacdo waa la bedelaa qof shakhsi ama laba ama saddex waxay geysteen ayaa ummad dhan burush saxarada loo mariyaa oo la yidhaahdaa saasaa naloo galay iyo qabyaalad baa naloo laayay waxyaalaha lamidka haddii qof iyo laba ay dembi geysatay annagoo wada og soomaalidu inay islaysay dagaallo fara badan dalkeena ay ka dhaceen qabiil aan la dilinin ama wax laga dilinin ama dhibaatada aan qayb ka ahayn inuu yar yahay baan u malaynayaa marka laga reebo qabaa'ilada soomaalidu ay heeb socdo hadday aan leedahay reer banaadirka iyo dadka dhoobeyda beeraleyda iyo dadka la midka qabiiladan waaweyn inta badan waxay weye dad islaayo oo isdilay inta badan u badan yihiin qof haddii uu dembi geysto ama laba geysato muhiimad intee la-eg ayay leedahay in aan reerka qofka uu ka dhashay oo aan dembiga qayb ka ahayn waxba ka ogeyn ayaga aan matalanin inaan burush saxarada la marinin oo magacooda iyo karaamadooda aan lagu ciyaarin soo dhawo axmed walaal waa runtaa marka hore waxa laga yaabaa fikradda haddaad soo jeedaysa tirahda dembigaa baa laga galay maanta meediyaha meelaha inta soomaalidu waxay isticmaalaan meelaha adduunku ay ka isticmaalaan waxbarasho iyo micnaha horumar anagu waxaan ka isticmaalnaa meediyaha inta aan ka isticmaalno waxa weye inta xun waayo hadduu maanta qabiil maanta uu meeshaana dhigay micnaha horumar kale nooma harsana ilaa waan arkaysaa tiifiyadan waan ka daawanaa waxyaabaha ka socda waddankeeni maanta marka ayaga iyo ilaahay bay jirtaa qofkii micnaha maanta anigu walaalkii qabiil looma dilin waayo hadduu qabiilka reerka uu ka dhashay idaacadda ma imaanayn la oran lahaa muuna tegi lahayn waayo magaalada muqdisho ruuxa markuu ku dhasho de magaaladiisii uu degan yahay marka qabiil looma dilin ninkan wuxuu u dilay oo anigu informationka ilaa 30 sano aan baadigoobka ugu jiray waxay ahayd sadbursi uu ahaa waayo asagoo aan aqoon lahayn uu meeshii soo galay qori wata dadkii micnaha meeshii joogay idaacadda farsamo yaqaan ka ahaa idaacadda ka shaqeynaya wariyaasha ka ahaa wahandadaad iyo micnaha kursi ka qaadasho kabacdina asagii la xumaatay oo arkay micnaha inuu godob galay dhiig galay ka baxsaday wadankii marka marna ma oranayo qofkii asagii ilaahiisa hadduu la soo istaago la yidhahdo haa reer hebel wey taa asagay u taallaa wixii is cunayo dagaalka ahliga is cunaya taaba asagay u taallaa waayo nimankan weligood qori mayna qaadin mayna tababar xataa mayna tegin wariyaal bay ahaayeen masaakiina aad aa mahadsanta gartay faadumo aan siiyo in dadka aan laysku darinin oo aan dhiiggaa daatay dad xumaan wada ama koox yar ah aanaysan uga faa'iidaysanin caadifad qabyaaladeed ay kiciyaan oo qof iyo labo dhib ay geysteen ummad soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo huwan oon xumaan isku raacinin oo shiikh leh oo shariif leh aan burushkaas saxarada la wada marinin oon cadaaladii la raadinayay mid ka fog cadaalad darre aan la samaynin muhiimad intee leeg ayay leedahay ka qoys ahaan idin leedahay idinka qof maxay ahaaday dilay qof kale in lagu ciqaabo ama dembi qof uu galay qof kale in lagu ciqaabo wuu fiicnaba sideeda ma fahamtay
marka kolley aniga fikirkaas ma qabi fikri qabiilna sideeda waaba necbahay waa kasoo horjeedaa kuma barbaarin mana naqaan qabiil waxaana wada beryahan leeba aragnay qabiil 91diiba magaalada soo galay ka hor cid taqayna ma jirto marka ilaahaan baryaynaa alla ducaysto cid dembiyay gashay cid kale yaa loo ciqaabin qabiilo kale qabiil wuxuu sameeyaa looga xagan shiiqa shariifay leeyihiin aniga taas sidaada ma aaminsani waxa waaye qabiil iyo wax la yidhaha ma jiraan qof dembiga uu galay dembi kale yaa loogu ciqaabin ilaahay laga cabsado aniga taasay taladeeda tahay aad iyo aad maxamed aan siiye markaan maxamed soo dhowo su-aasha waa maqashay in aan maaragtay qof adiga qoyskaaga ka mid ah ama walaalahan kale ama kuwa daawanaya dhib qofkaasu geystay inaan loo oranin ree hebel baa la dilay iyo ree hebel baa lagu soo duulay meeshan ay ka caddahayba nimankaan la dilay inaanba qabyaaladba loo dilinin sida iminka axmed uu lahaa iyo dad kaloo baan nahay oo horey saxaafadda oola hadlay in aan ummadda sumcaddeeda iyo sharafteeda iyo shariifkeeda buris xaran la marinin qofkii xun meel looga soo wada jeesto loona nasteexeeyo dadka intiisa badan inay fiican yihiin la aamino oo xaqiiqada dhabta ahna saas ay tahay see aragtaa adigu walaal walaala waa mahadsan tahay horta waxaa ila jooga maxaan ahaa saddex qof oo walaalaha burhaan shacali faadmo shacali iyo arda shacali baa ila jooga ma fahamta waan jeclaan lahaa iyaga ruuxooda bal ra'yigooda inaad wax ka aragtid kow laakiin haddii anigu antayda ka hadlo waxa ma aaminsani in wax nimankan loo laayay qabiil ma aaminsani maxaa yeelay nimankan waxa weeye niman innocent ah oo wax dembi aysan gelin qori aan qaadan aan ku tala jirin xataa qori inay qaataan oo qabiil u diraraan midkoodna ma ahayn marka waxa loo dilay waxa weeyaan waa jalas ama waxa weeyaan waa masayr baan oran karaa waxa loo laayay ninkanina waxa weeyaan wuxuu ahaa askartii generaal caydiid la socotay ayuu ahaa anigu inuu maaragtay macallin ahaa iyo ma sheeg kuma dambaabi karo laakiinse kolliba askartii waxaan hubaa inuu ahaa askartii jabhadda ahayd oo la socotay generaal caydiid oo ka timid gobolladaas maaragtay waqooyi iyo etoobiya qaarna ka yimaadeen buu ahaa nin wariye ahaa oo caadiya ma uusan ahayn waxa weeyaan laakiin waa dhici kartaa inuu jeclaa inuu wariye noqdo sababtaas awgeed baan raggaasna muxuu ahaa u godgaleen waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa maaragtay inaan cidna qabiil iyo waxaas inaan loo eedaynin qabaal kuwa isdilaan laakiin hawshaan qabiil ma ahayn ee waxay ahayd shaksi toogasho iyo muxunaha sadbusi wax la yidhaahdo bay nimankaas ku dhinteen masaakiinta allaha u naxariistaana leena waxa weeyaan waxaan aaminsanahay sharciga wax alla wuxuu qabo dadka soomaaliyeed inay xukumaan oo muxunaha loo arko ninka kani dembiga uu leeyahay markhaatigana la badso intaa markhaatigu waa ka badnaa ugu yaraan 30 qof 40 qof baa joogtay walaalkay ninkii ugu dambeeyey oo la sii jiitay ayuu ahaa sidaan maqlay waxa weeyaan oo warninka iga reeba farahana looga qaaday maaragtay ama qori cabsiha looga baqo ama wax kale ha looga baqay marka waxa weeyaan anigu sharciga waxaan ahayn oo aan aaminsanahay ma jiro sharciga ninkaas in la hor keeno oo sharcigu wuxuu ku xukumo lagu qaado ayaan jeclaan lahaa waa gartay waxaa xusid mudan in uu sufyaan yiri maaragtay muuqaalo oo la soo geliyey inuusan maaragtay jamhad ka mid noqonin haddii aanan khaldanayn jamhadna uusan ka mid ahayn uu ahaa nin macallin oo gobolladaas shabeellada ka yimid isla mar ahaantaana dowladda soomaaliya u shaqaynayay marka uu naga maqan yahay qaybtiisa inaan soo bandhigo waa daruuri qofka maqan bayna marwalba saxaafadu difaacda kulligiin waa idiin mahad celinaya waxaan jeclahay gabagabadii inaan kusoo gabagabeeyo arrintan waxaa jirtay daawadayaal dad soomaaliyeed oo suuqa la yaacayo aad ku tiris u ah oo lahaa cabdixafiid ninkan wuxuu u raadsanayaa sufyaan qoys iyo qabyaalad waxaan magaca ilaahay ku marayaa markaan wareysanayo ciduu soomaali ka yahay inaan ogeyn garanaynin danna aana ka lahayn waxaan sidoo kale ilaahay hortiisa markhaati ka ah maalinta qiyaamada liisoo taagaya dadka la dilay qoysay yihiin inaan ogaanin aanan horey u ogeyn waraysigii anugu la yeeshay kadib dad hadlay baan ku ogaaday qoysaskaas cidda ay yihiin wax qiimo ah ama macno ii samaynayso qoysku qofku uu ka dhashay ma jiro hadduu maaragtay saxsan yahay iyo hadduu khaldan yahayba
maxaa yeelay qoys xumaan isku raacaa ma jiro ummadda soomaaliyeed ma sharaf iyo karaamo leh kala dambeyn la isqabato cuqaal la weeye marka inaan cadaaladda laga fogaanin oo caro iyo xumaan aan looga faa'iidaysanin waxyaalaha qaarkood ayay ku habboon tahay waxaan insha allahu tacaala barnaamijkan ku xigi doona haddii ilaahay yidhaahdo barnaamij kale aanu ku waraysan doono abuukar reerkiisii iyo weliba xange eheladiisii dabadeedna waxaan u gudbo doonaa saan hordhaciba idinkugu sheegay dad ayagu sheegay inay yihiin goobjoog oon horey loo waraysanin oo ayagu arkayay waa say hadalka u dhigeene in qori lagu qabtay abu sufyaan uu qori ku afduubay ama ku qabtay nimankaa warbaahinta ka shaqaynaya qaarkood dabadeedna uu kaxaystay sidaa ayaa qoraal laygu soo gaarsiiyey waxayna diyaar u yihiin baa la yidhi labadaa qof inay hadlaan oo ayagu markaas saxaafadda ay toos ola hadlaan waxaan idinka ballan qaadaya hadday iga yeelaan inaan soo gudbiyo haddii ilaahay yidhaahdo abu sufyaanna aanu maaragtay dib u engage garayno haddii uu naga yeelo arrintaana meeshay ku dhammaato aanu idinla soo socodsiino waxaan u mahad celinayaa marka hore hooyo faadumo salaad faarax oo ahayd hooyada dhashay cabdi sheekh cali hooyo weyn ahayd cabaar bay nala hadashay cabdi maxamed baa booskeedii ku jira iyo reer sheekh cali oo dhan waa idin mahad celinaya waan idinkaga tacsiyinayaa samar iyo imaan baan idin leenahay waxaan u gudbayaa marwo faadumo macalin abukar oo cabdiqaadir cali xaaskiisii ahayd 4 carruur oo ugu soo korisay xushmad iyo sharaf iyo karaaman ku haynaa kuwa dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda aqbala anfaca allaha kaaga dhigo واختيار وكامل علنا صوري إمام كسلنا أحمد آذن حسن أيانا سنة سنة كلهم هذا علني يا دمان ري آذن حسن يولي بهوي أو لجوك توقفوا إلى هل الكرينين وقلبي إذا واردين يوانو هذا علنينا صوري إمام بان لنا هاي أنت أنا كانوا كلا دبوا كل مدور ما قاعد عبد الحفيظ محمود جامع ما يدين رجيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.